wacyigelinta qaranka iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ciidamada Baanbayda gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaasha ururada haweenka gobolka Banaadir ururada haweenka iyo dhalinyarada gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir dhamaantiin waa salaamantiin inta kadib maanta waa maalin aan rabno inaan u muujino cadawgeena cududeena iyo midnimadeena waa maalin aan go'aansanay inaan u dhimano dhulkeena calankeena iyo qarannimadeena waa maalin aan ka jawaab celinayno colaadda iyo baabaa iyo dhagarta ay shabaab iyo argagixisada adduunku ay ku hayso ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waa maalin aan ku dhaaranayno diinteena islaamka midnimadeena iyo magaceena haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo mar kastaba ay ilmada iyo hagardaamada iyo calool xumada ay badeen argagixisada adduunka iyo calooshoodu shaqaystayaasha dhabarta nooga eeg ee sheegta magaca Soomaaliyeed ee ku qaraabta diinta islaamka iyaga oo ah kufaar gaala oo banaystay inay daadiyaan dhiigga muslimiinta caruurta saqiirada hooyooyinka aabayaasha iyo dadka masaakiinta oo aan waxba galabsanin waxay nagula dagaalamayaan waa wax loo soo dhiibay waa wax cadawgu soo dhiibay waa wax suna oo la yiri Soomaali ku baabi'iya waa wax ayna garanayn ayaga laftigoodu waa wax lagu maandoorinayo oo muqaadaraad oo asaga oo sheeganaya diin oo Ilaahay magaciisa sheegaya oo haddana asaga cabsan nala hadlaayo asaga darogaysan oo nala hadlaayo sababtoo qof caadi ah dadkiisa inta laayo oo caruurtiisa dilo oo hooyadii dilo oo walaalkii dilo haddana Ilaahay magaciisa ma sheegto waa kufaar u soo istaagtay inay Soomaaliya la dagaalanto haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo in dambe iyo calaacal dambe waa naga dhammaaday waxaan diyaar u nahay inaan ciidamada qalabka sida safka la galno inaan guriyaha ka saarno inaan caruurta ka soo ceshano inaan geed walba iyo goob kasta ugu galno in maanta wixii ka dambeeya aanan asay u qaadaynin ka ay dilaan waa shahiiday gabadha ay dilaan waa shahiiday qof kasta ay daga dilaan waa shahiiday jannada noo ballana waa inoo dagaal iyo inaan cadowga argagixisada iska mataqaanaa cudud kula dagaalano hooyo Soomaaliyeed ayadoo qashinka dhulka ka xaaqaysa ayaa loo geliyay miina loo geliyay oo wiilkeedu u geliyay hooyo Soomaaliyeed ayadoo quudinaysa ilmaheeda oo habeen iyo maalin soo jeeda ayaa lagu dilay hooyo Soomaaliyeed gambaa loo saaray asay baa loo saaray waa la gablamiyay waxa sameynaya Soomaali ma aha Soomaali kama dhalan waa dad la maandooriyay dhawartoodu Soomaali u egtahay af Soomaali ku hadlaayo oo la tababaray oo af Soomaaliga lagu soo tababaray laakiin cadawada iyo argagixisada adduunka u gadan oo calooshoodu shaqaystayaala ma la dilo amiirada ma aragno waxay soo diraan waa caruurteena oo ay maskaxda ka dooriyaan oo darooga ay ku soo diraan waxay soo diraan waa raggeena oo ay ka caqli badiyeen waxay soo diraan waa ubadkeena oo maalin walba aan ku gablamayno ilmaheena la jooga waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo noqdaan gobol nabadeeda u fidsan dalkooda ku soo noqonayaan Ilaahay ilankii iyagana cid la isku heli doonaa amiirada loo gelaaya meesha loo socdo waa kuwa amiirada la baxay amiir baas iyo amiir maaragtay meel daran ka dhacay oo Ilaahay ka fogaaday oo magaca islaamka ku qaraabtay oo ummadda Soomaaliyeed dhiigeeda banaystay waxba yaa la isu micnaynin maanta waa dagaal waa kama dambays waxaan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir baaqaad noogu baaqday haddii aan nahay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha gobolka Banaadir in loo diyaar garoobo in cadawga la dabar jaro oo dagaalka la galo diyaarna waa u nahay Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha saado Soomaaliya ha midowdo cadawga
ugus ha dhaco shabaabku ha dhaco ha dhaco argagixisada adduunku ha dhacdo calooshoodu shaqaystayaashu ha dhaceen dalkeenna ka baxa dhiiggiina waa noo bannaanya saad u bannaysateen dhiigga ilmaheenna iyo nafteenna waa mahadsantii